السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن دلهانتين بقى كسر هذا برامج كنا لما أنت وكسر سنة هاي مشروع صهيونية ده يدنت أي كلا ده الدنيا ده كارهان برجع ده يجلس كأفريقيا. برامج كنا وحبرتين نواه شيخ عبد الرحمن بشير شيخي مركور كسر برامج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ عبد الرزاق بقوله هاي وأقوم مهنا قيا هذيك إيوه قبل قباش برنامج كنا إيوه طوداش بالبعض إن شاء الله تعالى. شغلنا أديكونا أدي أيضا ما حسنتهاي. جزاك الله خير. مالمهان سيدا عن لسعنه دجالك إسرائيل أما مشروع الصهيونية ده إيران كلا دحيي أد وصي بلارتي أدى إلى لبنان بيسيجلن سوى كانوا حاسوا عند برنامج بربر السعوداء أو ذلك مريكا كذلك الريحيان ويبحيين إبراهيم أكورد أما هشيسكا إبراهيمية ده صح. إسلام كريستان كيلسوكينيو مشروع عن وحوم مقدام مد صهيونية الدنيا ده أما زين استجا أي كدم بيان وكذلك الريحيان مركو جور رئيس وحنا جعلان لهين مشروع عن واحد وياهي يدنت لقلي هاي وين إنه نقاط دقنا هسه شيء مركو مشروع عاني صهيونية وما هي مشروع عن أي وضع سمحويه. أوكي أدوى ما صدتهي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخي جزاك الله خيرا. ورتا وحنوبها النهي إنا فهنو فكرة الله يلاحظوا صهيونية. صهيونية waxay ka imatay صهيون وبور ku taala wadanka Falastiin. waxaana loogu magacaabay ururka صهيونيada urur la yiraahdo oo ku horeeyay taagitaankii dawladda Israa'iil. marka haddii aan orano mashruuca صهيونigu muxuu horta yahay asarkiisu waxa weeye waa xarako waa dhaqdhaqaaq waa movementaas oo saddex arrimood ku salaysan siyaasad fikrad caqiido سياسة فكرة عقيدة سدح شيء سياسة وحلوجة جدا وحكوه شيء لا بقولون أركيدونا ما أنت الصهيونية المسيحية هي الصهيونية اليهودية صهيونيزم يهودا هي صهيونيزم كريستيان وحكوه شيء سياسة لهان إلا دسوا الدولة هذا إسرائيل وسياسة تاسي فكرة هنا وحويان وآمنات الأهمية هي إن شعب اليهود أو قوة قحوتي وضنظر أي يوروب إن الله لما لا يتجان فكرة واتاس بذلك اللي بدأ دون كذب كهرباء اللي تجيبها وحيقول بهي الفائد اليهودي فائد واحد ضع وحبطب زيادة هالكين كينا نقبتين قارنوا حيقول بهي فيرس كيهودا هالكين سكتورنا استعفيان بأوتلا فكر عقيدنا وحويان لبدن قلبا waxay aaminsan yihiin dhul la yiraahdo ardul mi'aad dhulkii yaboha ama ballanqaadka oo ilaahay u ballanqaaday waxay kristanka asalkiisu oo aaminsan yahay yahuudu inay dileen nabi ciise oo waxaan aad u aaminsan katolika iyo ortodokska nabi ciise alayhi salaam yahuuda dishay annaka quraankeena waxa ku qoran yahuuda disho waxa uu adeegsaday roomaanki laakiin annaka quraankeena waxa ku qoran wama salabuhu lama salbin wama qataluhu yaqinan tabahana lama dilin bal rafa'ahu Allah ilaahay korgeey subhanahu wa ta'ala marka nabi ciise lama dilin lama salbin laakiin kristanku waxay rumaysan in la dilay oo markii la aasay hogga laga soo saaro ilaahay qaaday laakiin in la dilay ay aaminsan inuu soo noqon doono waa aaminsan yihiin markaas soo noqodka ay aaminsan yihiin qoladani kristanku waxay awal aaminsanaayeen inuu aargooyn doono yahuuda laakiin markii diintan kristanku ay iskhilaafeen protestantka iyo catholicu protestantku waxay aamineen waxa la yiraahdo al-ahd al-qadim iyo al-ahd al-jadid al-ahd al-qadim waa tawraad al-ahd al-jadidna waa injiil okay kitaabka tawraad in la aamino oo la rumeeyo waa min ad-diin qolaha protestantka waxa rumaysan laakiin qaarnahan rumaysan yaku kuwan aqiidahan rumaysan labada nasakhin bay ku leeyihiin wana qaadan sida u qaadan
okay in yuhuudda lagu soo ururiyo Falastiin waxay ka farxinaysaa nabi ciise marka waa inaan nabi ciise barakadiisa ma helo waa inaan taageeraan u soo ururino ka protestantku saas u meesiyay jireed idan marka xarakadan maxay ku salaysan tahay guri siyaasa iyo fikir iyo caqiido okay waxayna dhalatay qarnigii 16aad 17aad waxay ku dhalatay Ingiriiska iyo Ireland waxayna sii ballaaratay adkaatay qarnigii 19aad iyo xoog yeelatay waqtigaas oo uu asaasay ninkii loo oran jiray Herzl walaalkii doono marka xarakadu waa sidaa mashruuca marka sheegno mashruucu wuxuu ka soo inbitaaqay ka soo saddexda xarako mashruuca maxaa dhalay xaraka dhashay okay xarakadana waxaa sameeyay ninkaas Herzl xarakaduna waxay ku salaysan tahay siyaasad fikrad iyo caqiido soma garan okay marka xarakadaasi waxay leedahay hadaf weyn baa xarakada leh mashruuca ma haya hadafka ay leedahay waa in la abuuro dawlad magaceeda Israa'iil lagu sameeyo meel kamida meel adduunyada marka hore sameeyay Falastiin lama markii hore anyway meel kasto ولذلك waxa la soo bandhigay mataqaana Uganda waxa la soo bandhigay Koonfur Afrika waxa la soo bandhigay Argentina waxa la soo bandhigay jasiirada kale aad u fara badan geeskan Afrika meel la soo bandhigay bandhigyadaas way yaaleen markii hore halka laga taago awoodda Yurubna la isticmaalo marka taas waa mid labaad wax weeyaan Israa'iiliintu waxay ku jireen waxa tii يهود فلا مركي يوروب يمرق وقعد دوس جري ولا عذاب جري إلا لما يحالة تيها يكن تيه هو كان واحد عضعب قرية بس كحوين بو كان إن إسقاب صدان لما يلون هرم مرقه عادية كجانا حولها كان هندابك إيه علم سينسك الدون كان يسكو تيه أو كان أود عبقري نماها بيدون إنه يغير بحاله هلان أنت صدقني واحد إلا يلاحظه ونجد ده يمالنا ودولنا دول بيرينا كعلنه خلوك وين الله سمعي سأنا كده دولك أو ياشوا وحلو دولك يبوها أو فلسطين مركا مشروع هذا ويدي السؤال شو هاي تاي بطاوير واتح شيخ مشروع عسي لو قدون دوني يهوديا الدونكا كارهان يوروب كوبا تاي ويدوني إن يسلح فيان ملك الجيان دولد لو قلت سو أرض الميعاد ساك شخص وكل شيء هاي ideology أما وكل شيء عقيدة فكرة أنه كنا واجسين مرك ideology الصهيونية ده فك محنا قنايا أوكي يا شيخ عبد الرزاق أنا كان بريهان واحد دقيقة علومات الصومالية وكهذا الرد إسرائيلي وفلسطيني العقدة حرير كرلي يرني الصومالي هذه الصومالية ما حال سمين كرايو مدحوينا حسن ويولي أنا كم هو جريتان كإسرائيل لكن العقدة ما أقبلها إني ما مارت وزير فاعل رأيه سفير كي صوماليا حاضري هشيس شير وقت نيروبي إن سفير يهودو قبنقابي صومالي هذا قدس سفارة الجيش ولو حكى هذا السؤال وده محاول حياة شينها إياه محاول حياة مارت وحن ضد عن علمي سنين يا كسعد يا سعد أو نكسل سنين وحلا يقان على القراءة العميقة أخرس عميقة كسل سنين أو سطحية قراءة سطحية بارد كل واحد عاية إن قدس لغفري إن تلابيب سفارة لقيه وحاس إن على قراءة سمع كنا لا سمع كريم وحلا سوق هذا يا نبي ويهود ودرع بوك قاضي ومارته أمه بوك قاطئيه ولا شيء ولا معامل جري أنكم مركها يوروب يجي أمريكان جوني يهود ولا معامل عادي ضد نورمال وياه وندور النابة بس جارك وياه نبي وزيارين جري صلى الله عليه وسلم وزيارين جري وضد نورمال مركها يهود لقى حوالي بروجكت صهيونية ما يهود ما أنت أذكر أركيدون ما أصلا وقع وقتها أوكي إيديولوجية ده من بجرا إيديولوجية جارودي وهنجري فيلسوف فرنسيس وإسلامي كتاب بقرأ وبيع اللي ميث فونداتير de la politique israélienne هكذا وبيع كتاب وبيع أساطيرته legend so legend لبنا legend أساطيرته
lagu asaasay dowladda yuhuudda maxay tahay waa buug weyn jaarudi baa qoray maxaa ku dhacay jaarudi markuu buuggaa qoray doctoraagii baa laga qaaday waa lagala laabtay لأن حقائق وصور بندقي وقت قال سيدتك أنا ولد تاريخ ذا الألق كدين مركي لقى قاعد ترى بوكر وسوق يبعي فلسطين أرض الرسالات الإلهية بوكر وين فلسطين ودركي رسالتها إلهي مركي ستحضر قريبو وبعي انحطاط الغرب بربك غربي وكسر الله إن الميزاني عدالة كتاين ninkaasi markuu qoray buuga wuxuu yiri waxay ku dhisan tahay legendka asaatiirta khuraafaadka lagu saleeyay dowladda Israa'iil waa afar ususku markaa siyaasiga ideolojiga waa afar tahay usturadu kood maxay tahay al-ardu al-maw'uuda dhulka Ilaahay noo ballan qaaday marka qaarkood waxa sta isticmaala waa wadaadada shakooyin la sameeyay waxa yuhuud al-ardu al-maw'uuda waxay dhahdeen يعني حتى قصة أخرجتي وقصة عجيبة وحيل هذا وحكوا قرأت تلمود تاكل العرب وحيل هذا إلهي النبي يعقوب فيرتمي رب العالمين كون كنت على الله النبي يعقوب كتاب كذا قرأته وين فيرتمي هاي فيرتنكي وحكوا دم هذا كلامات كان ببرع هاي مركب اسباب بعين بو النبي يعقوب إلهي ويديشتي ولا جنت سبحان الله إن أوبد كيسة حقه هالك اسكدغ إلهي مركا محولي لنسلك كوا كاتر ميا أعطي وحسينا يا ما بين النهرين لبدا وبي لحدودا النيل والفرات نيل يفرات فرات لحظة أرض العراق ما هو لا تركيا إلى تركيا تركيا waa ku jira Sacuudiga ku jira Urdun baa ku jirta Suuriya ku jirta Iraq baa ku jirta Sayna oo Masar ku jirta Falastiin iyo waxaan lagu wada jira waxaan siinayaa dadkaaga ubadkaaga marka halkuu ka keenay Yacquub waa webiga Niil waay markaas webiga Niil iyo Furaat inta u dhaxaysa yaa siinayaa calanka Israa'iil waa ku qoran tahay haddana barihaan waa la soo celiyay maxaa ku qoran labadii ku soo jirtay ولذلك دولة إسرائيل ودولة قراتي أدونك لا اعتراف يدون حدود الهيد منك دولة مركي جمعية قرمها تكتي اعتراف ضلبته وحال لو يدي حدود يدو هيك نوع مالسا يدو ماله ولذلك وحالها مقعيقة الحدود المطاطية استشاق مالت فضل واكسبانشنست ستيت واي ستيت مره بوا ممكن كل حوغيه ونصون نقون كرا waxay ku xiran tahay kulba awood ay hayso waa nabi yaqoo ilaahay la dagaalamay ولذلك فكرك دولة إسرائيل لما dadka صهيونيزم في إسرائيل ما صهيونيزم waxa ku salaysan tahay wax la yiraahdo القوة awood ilaahay awood ka soo qaatay madhow سأمسين نقم أمسين مركز تكون معي وأسطورة أورانيسا لجنة أورانية نلقي إلهي نويا بها سأيا استعماله وذا ذا كو علمانيين توحي استعمالان الأراضي المقتصبة نلقي لغا قاطع يعني تاريخيا الله تاريخيا عبد الرزاق مركز بعدت نلقي إيالها مركز النبي موسى كده يدخلوا نلقي قلع نليب بركي إلهي وكليه نبي موسى وصل مرنا يوم الأرض المقدسة وإليه ما قرينه إن فيها قوما جبارين تذكر ودوك الله جبارين تاسي وبحي وكنعانيين كنعانيين تأسوش وذن وعرب كإما طيب مرة هوري يمن مركا فلسطين أصل كيه واحد دقنا عرب هذا دقنا ولذلك أورنجري هذا إيجار ياسر عرفات نحن شعب الجبارين halkaas ka soo qaaday shacab الجبارين كلمة جبارك halkaas ka soo qaaday dadku waa ta usturka waa usturada samaysteen وسياسيين طلبات واسطوره الشعب المختار anagu waxaan nahay shacbi la doortay waxa quraanka ku qoran nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu anagu waxaan nahay ubadkii ilaahay iyo ku ilaahay jeclaa
waxaa ku qoran quraanka laysa calayna fi lummiyiina sabiil dadkan ummiyiinta ah waxaan doona ku samayn karnaa ilaahay noo abuuray waxay aaminsan yihiin waxay dhahdo ashucuub almustaxmara shucuubtu waa dameero naloo sameeyey annaga walidaalika waxaa ku qoran kitaabyadooda qaarkood idaa nafaqa ximaarun utrukhu warkab ximaaran aakhara lam yanfuq bacdu hadduu dameera korsata hadduu daalo ka dhaadhaca ku kala kor walidaalika markuu ingiriisku soo dumayey hagee tageen taasina waa midda labaad midda saddexaad waxay rumaysan yihiin ustuurad cajiiba sheekhow ardun bilaa shacab lishacbin bilaa ard waxaan rabnaa dhul shacbi aan lahayn maxaan keenaynaa shacbi aan dhul lahayn odaygii alxuseyni la oran jiray falastiin qaadiya kaan jiray markii la keenayay wuxuu yihi falastiin laysat ardan bilaa shacab xataa yu'taa ilayha shacbun bilaa ard dhul dad lahayn maaha si loo keeno dad aan dhul lahayn ustuuradana waa la sameeyey hataa afraadii la sameeyey muxuu ahaa waa ustuuro khatar ah ustuurada khatartii waxaa la sameeyey alwacdu taariikhi dhulkan taariikhiyan annaga lahan jirnay historic ahaan afartaas ustuuradood iyaa lagu dejiyey ideolojiyadda lagu sameeyey dowladda israa'iil ama mashruuca sayuuniga saasaa dadka laga dhaadhiciyey saa dadka laga dhaadhiciyey ku dagaalamayaan waxaa loo yaqaanaa narrative waxaa loo bedelay ustuuradii legendki narrative adduunkan ad ku nooshahay sheekh cabdirasaaq oo laba waxaa is haystaan waa laajand baa isdirnaya asaatiir fikrado la kala aaminsan yahay markii ay dadka maraykan yurub ka yimaadeen ninka cadi oo qaaradan america oo faaruq laga qaadanayay dadkii indiyaanka ahaa maxaa laga qaata ma taqaanaa waa ardulmicaad waa dhulka ilaah noo yabahay markii la yimiday meesha la dhahdo australia waa dhulkii noo yabahay dhahdo markii la yimiday dagaalkii saliibiyiinta waa dhulkii noo yabahay bay dhahdeen adduunka lajantka laisku daraya waa maxay waa dhulkii noo yabahay laakiin waxa cajiiba waxa weeyaan waa narrativekaas qur-aanku wuxuu ku bedelay sheekh cabdirasaaq maasha allah maxaa ku qoran qur-aanku ma qoran dhulka dad baan siinana mucayana waxaa ku qoran walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarisuhaa cibaadiya asaalixuun waxaa ku qoran ilaahay wuxuu yihi waxaan ku qornay kitaabkii zabuur ya dhulka waxaa dhaxlaya addoomahayaga kuwa wanaagsan waxay yidhahdaan culummadu tafsiirka haddaad ku fiirsasid matala haddaad akritid ibn caashuur oo kale ma macnaa cibaadii ilaah horta isagaa isku nisbeeyey waa addoomahaygii saalixiin muxuu ku macnay mataqaalaha wuxuu yihi aladiina yuslixuun hagaajinaya wayaslaxuun iyakuna fiicnaanaya wayasuuduuna bisalaax dhulkana ku xakumaya wanaag maaha cirqi maaha anaala maaha dhulka ninka nooleynaya le nabiga xadiiska rasuul wuxuu sal slam alardu liman axya dhulka yaa le qofka nooleyn waa laga qaado dowlad islaamiya maxay siinaysa dhul baa lagu siina cabdirasaaq marka dhulka soo waad u fadhisaa haa dhul baa ku siinaysaa haddaad beer ka samayn weydid amba warshad amba ari ku hagaajin weydid amba xoolo oo nolol ka samayn weydid waa laga qaadaya mid kaloo ka shaqeeyaa la siinaya dhulkana wax soo saar inuu sameeyo xadiisku muxuu bixaya man axyaa ardan mayta fahiya lahu ninka nooleeya dhul bayda isagaa laakiin dul fadhi un maaha hada wa salaax jazaaka allah khayr marka falsafada ay ku salaysan tahay waa taas wey shaqay waa tahay shaqada tan iyo sanadihii labadii qarni ugu dambeysay 1800kii laga soo bilaabo isticmaaro iyo gumaystayaal fara badan oo Yurub ka imanayay yaa adduunka haystay sida waxaa loo yaqaano the scramble for Africa markii Berlin ay fariisanayeen Berlin conference-ka Afrika la qaybsaday Asia la qaybsaday nin walba in goostay isticmaar buu ahaa intuu xilli uu socday kadibna uu soo afjarmay marka isticmaarku marba wuxuu qaadanayaa nooc cusub buu qaadanayaa marka hadda sahyuuniyadu isticmaar xoog leh ay ku wadaan dunida muslimka gaar ahaan bariga dhexe oo meel badan bay isku sii balaaranayaan marka isticmaarkani muxuu kaga duwanaan karaa kuwii hore okay horta كلمتنا مالتي الاستعمال مالتي سايريز بيها انا كنا وابو كطالع مع فلسطين نين لا يلاحظوا محوها ناتان بيرونون وها ريسويس ياسمي كلمه مقعد سهيوني كلمه
wuxuu u sameeyey matalan ururkan shiicada ee ka jira libnaan wuxuu la baxay xisbullah muxuu la baxay quraanka quraanka suma ala in xisbullah hum al-muflihun aggaaba ayuu kasoo qaatay okay matalan urur soomaaliya jira oo sunni ah oo wadaadada ah oo la baxay al-ihtisaam halay kasoo qaaday kamid ihtisaam واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ummaduhu waxay leeyihiin meel ay ku laamaan wax ka soo qaataan wuxuu yidhi shacbigan yuhuudda ah ee adduunka lagu firdhiyey la guumaystay la cadaabay maxaa noolayn karaa inaan ku xidhno falastiin seen falastiin ugu xidhi karnaa waa inaan buurtaa weyn ee sahyuun la idhaahdo aan ku xidhno magaceeda qaadano aan qaadno saa horta halkaas ka imatay okay marka maxay kaga duwan tahay oo cajiib horta guumaysigu sidiisaba guumaysigu waa jariimo waa criminal dambi weyn weeye oo dambi weyn midda labaad guumaysigu wuxuu u yimaadaa waxa weeyaan tirtir taariikheed iyo abuuritaan taariikh kale guumaysigu maaha dhul inuu qabsanayo quraate qaba inuu dad qabsanayo oo quraate maaha guumaysigu wuxuu u yimaadaa inuu tirtiro taariikh hore uu abuuro taariikh cusub iminka matalan jabuuti oo kale marka laga sheekay waxaan leeyahay markii ugu horeysay ee uu yimid faransiisku magaalada ubukh bay abuuratay taariikhda jabuuti ma qabl ubukh ma la garan leeyahay wasaab u jeedaan waxay ka soo qaadayaan inuu bini aadamkani madoobi oo lahaa daayeer dabal oo wadamada laga gooyay oo la bini aadamiyey mar labaad marka waxa uu bixiyay Edward Said fakirkii Falastiiniga ku noolaan jiray Mareykanka ee mustashriqa ahaa wuxuu u bixiyay wax weeyaan an sanatul insaan waxaan bini aadameyna bini aadamka ilaalin ay kalbada qaateen sanatul insaan isticmaalku wuxuu ahaa marxalad bini aadameynaysa bilaadeen waxay yiraahdeen waxaan u imanay wadano aan iswadi karin waan wadnay say isku wadi karaan marka wanu faa'iideyn amal ijraamka dhanba taas u ahaa laakiin tani ay sameeyeen sahyunismku waxay kaga duwan tahay afar shay maaragtay ninkii la oran jiray Herzl yaa sameeyay 1800 iyo wuxuu sameeyay 97 magaalada Pal Swiss baa lagu sameeyay laakiin fikradda waxaa la sameeyay 1890 fikradda goorma fikraddii markaa loo bedelay shaqo 1997 sano kadib goorma la shaqaysiiyay haddana 1990 yaa loo sameeyay sanduuq ugu horreeyay lacag lagu ururiyo oo shaqadii la bilaabay horaa sanduuq ma jirin inta hore ma jirin okay maxay kaga duwan tahay markaa waxay kaga duwan tahay afar shay muhiim jiddan wayaan isticmaalka hore iyo waxay isku dhow yihiin isticmaalkii koonfur afrika iyo isticmaalka sahyunismiga waxaa ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya waxa weeyaan inaynan ictiraafsanayn qofka dhul kale ay ictiraafsan yihiin qofka dhulka yimid ninkii caddaa koonfur afrika yimid dictatorkii isagaa yidhaha dhul kale kii meesha lahaan uu degan yahay kii meesha lahaa deganaana wuxuu yidhi male uu ii shaqeeyaa waa cajiib kii madow uu ii shaqeeyaa marka isticmaalkii talyaaniga ee koonfurta Soomaaliya joogay saa mu oran kii Somaliland joogay ama waqooyiga joogayna muxuu yidhi waa isagu maxmiya buu yidhi waa ilaalinayaa